haddaynu eegno guddoomiyaha golaha guurtida somalilan oo ka hadlayay xaaladda dalka wuxuu sheegay in meelo badan oo dalka ay ka taagan yihiin xaalado kala duwan. maxaa ku soo beegay baad u malaynaysa in guddoomiyaha golaha guurtida uu xilligan arrintaasi shaaciyo? runtii waynu ognahay cismaanow dee duruufaha amni darro ama dagaalada ama colaadaha qaarkoodna lagu faraha lagaga gubtay ama dhimasho iyo dhaawac iyo dhaqaal ahaanba inoo saameeyey runtii kuwo muddo soo jiitamayo iyaga laftooda aan laga gaadhin heshiisyo iyo kuwo imika abuurmayaba runtii marka golaha guurtida maadaama oo dastuurka somalilan iyo shuruucda dalkuba dee in ay door ku leeyihiin caddeeyeen arrimaha nabadgelyada waxaa runtii ka keentay guddoomiyaha golaha guurtida inay duruufaha iyo halisaha inagu gadaaman ee arrimaha amni darro ama khilaafaadka iyo colaadaha dalka ka taagan waad arkaysaa dagaalkii laascaanood in ka badan 1,000 ayaa ku dhintay dhowr kun oo qof baa ku dhaawacmay ilaa haddana xal looma hayo ergo nabadeed baa hargeysa joogta ilaa hadda wax waanwaana iyo wax arrintaasi fadhiya oo laga yeeshay ma jiro waxaa ugu dambeeyey in garaadada looga baaqay ama looga yeedhay soomaaliya ama magaalada muqdisho oo la filayay inay tegi doonaan walow ay ku kala qaybsan yihiin waxaanu ognahay burco maanta in laba beelood oo maalmaha shaqaaqa dhimashada dhaawacba keentay ka taagnayd arrintoodii loo fadhiyo oo muddo dheer ay qaadatay in labadii dhinac dadkii xidhaha ahaa ee la dhaarin lahaa ee arrintaa maadaama la doonaya in la galo la dejiyo soo fadhiisan lahaa miiska ay ka meeraysanayeen walow maanta ay arrintaasi sida ugu maqaalaha ay soo dhammaato loo fadhiyey waan la socday inay xaaladda maanta arrintaasi ergooyinkii ku dhex jiray maanta ay isu keeneen dhinacyo dhan oo la dhaariyey la filayana haddii la yidhahdo in ciddii dee dhibaatadu ka dhex dhacay runtii u hoggaansamaan dee dhexdhexaadintaasi iyo in la kala guro wixii dhexdooda yaalay marka arrimo siyaasadeed oo khilaafaad fara badan abuurayba runtii nagu gadaaman oo qaarkood dee gobolka awdaltii ka dhacday oo kale geeridii lagu lamaanayay ama dee looga doonay in looga faa'iidaysto askarigii lagu dilay sarkaalkii lagu dilay magaalada saylac oo kale dhacdooyinka fara badan oo ilaa hadda qaar muddo dheer xaniban oo goobo doorashooyin oo kale jira oo iyagana runtii mar walba doodooda iman karta gaar ahaan markay doorashooyinku yimaadaan oo kale markaa guddoomiyaha golaha guurtidu maanta dhoweed wuxuu sheegay in uu diray ergo shaqaaqooyinka qaarkood waa meelaha aad loo dhaliila ama meelaha aad golaha guurtida runtii loogu eedeeyo in ay ka gaabiyeen doorkoodii marka in laga maqlo ergaanu diray imika runtii dadku aad bay ula yaabeen maadaama ahayd in marka horeba ay horumud mar walba ka noqdaan inkastoo dastuurka somalilan dee xukuumadda mas-uuliyadda koowaad saarayo iyaguna tala bixin iyo ka qayb qaadasho ay ku leeyihiin haddana waxaad moodaa dareenka guddoomiyaha ka soo yeedhay inuu had dareenka cid wale oo somalilan maanta ay dareemayso in halisa fara badan oo colaadeed oo qaarkood jiraan qaarkoodna soo socdaan oo weliba la abuurayo ay nagu gadaaman yihiin mustaqbalkana haddii aan waxba laga qaban runtii somalilan oo muddo 32 sano nabad kusoo faanisay iibinaysay ay maanta arrinta iyo arrinta doorashooyinkuba sahayan karaan